maamulka Puntland ayaa si adag ugu horyimid qorshaha dawladda Turkiga. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa habeennimadii xalay ahayd diray hanjabaad aan inaba caadi ahayn. Dani wuxuu si cad u sheegay in aysan aqbalayn in diyaarado iska soo durduriyaan dadkiisana ay laayaan, taasina aanay ahayn wax suuragal ah. Hanjabaad cad ayuu diray madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, laakiin Turkiga isagana waa uu soo jawaabay. jawaabta Turkiga waan ku hayaa, laakiin muuqaalka Saciid Cabdullaahi Dani ila arag marka hore. waxaanan aqbalaynin intay dawlado iska soo durduriyaan inay dadka iyaga laayaan, iyagana kama aqbaleen. waxaan rabnaa diyaar u nahay inaan ka wada shaqayno oo dembiilaha qabanno. qofka dembiga leh annagu ma bortid garaynayno, mana difaacayno, laakiin ma rabno in dad aan dembi lahayn. haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa khudbadda Saciid Cabdullaahi Dani oo dhammaystiran iyo warka uu ka soo saaray Turkiga kadib eedayntii Puntland. isla markiiba Turkiga waa soo jawaabay. waxaad moodaa in markan la isu biro tumanayo. madaxweyne xasan maxamuud laftirkiisa eedaymo baan ayaa dul hoganaya oo qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya. Turkiga wuxuu ka sameynayaa baa la yiri wixii uu doono. waxaa kaloo isla eegaynaa dhul gariir xoogan oo ku dhufta xeebaha Puntland. waad la yaabi doontaa warkan in dhul gariir uu ka dhaco xeebaha Puntland. waa war dadka oo dhan naxdin gelinaya ama baqdin gelinaya. xeebaha sida gaarka ugu dhacay dhul gariirkana waan ku hayaa cabirkiis inta uu leeyahay ee khasaaraha uu dhaliyay. wararkaas oo dhan ayaa ku soo koobaya. daawada ka aragti dhiibo, like saar muuqaalka, saaxiibadana u sii share garee. waa mahadsan tahay. sida hordhaca muuqaalka iyagaba aan idinkugu soo gudbinay, madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in Turkiga sinaba aan looga yeelayn in wixii uu doono uu ka sameeyo. in doomo la iska duqeeyo diyaaradaha Turkigu digdig intay soo yiraahdaan dad nool la dilaan oo reer Puntland kama aqbalayo yiri. fariin cad oo hanjabaada ayuu diray, waliba si qab iyo ku dhacle ayuu u hadlay baa la yiri. ninkan wuxuu dawladda Turkiga iyo Xasan Sheikh oo iskaashanaya ku eedeeyay in ay daandaansi wax uu ku tilmaamay ka wadaan Puntland, taasina aysan u cuntamayn madaxda iyo shacabweynaha Puntland, sinabana aysan u yeelin Dani sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha dawladda Puntland ayaa soo kale intaasi ku daray in wax aad looga xumaado ay tahay dadkii 13 qof gaarayay ee ku dhintay duqeymihii Turkidu ay ka furiyeen xeebaha Nugaal iyo qaybo ka tirsan deegaanada Puntland. Saciid Dani warkiisu waa uu cadaa. dawladda federaalkuse iyadu sida inaysan Puntland xukumin oo kale ilaa ay hadda kama hadlin. dadkii la dilay kama tacsiyeen. Turkiga wax wara intay ama la hadashay wax wara kama keenin. Puntland baa sida dal oo kale u rafanaysa leeyahay. Xasan Sheekhna taasi waxay ku dhahay dib u dhac iyo dib jirnimo leeyahay. isla hadalkaas Saciid Dani xalaba ka soo yeeray isla maanta dawladda Turkiga waa ka jawaabtay. wasaaradda difaaca Turkiga ayaa markii ugu horeysay rasmi uga hadashay dhacdooyinka amni ee ka socda xeebaha Puntland xilli maamulka Puntland uu Ankara ku eedeeyay inay ka dambeeyso duqeymo dhawaan ka dhacay gobolka Nugaal oo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 ruux sida la xaqiijiyay. wasaaradda ayaa Khamiistii sheegtay in taliska ciidamada wadajirka ah ee Soomaaliya iyo Turkiga uu taageero siinayo hay'adaha Soomaaliya iyadoo aan si cad loo sheegin in ciidamada Turkiga ay fuliyeen duqeymaha lagu muransayahay. taliska ciidamada wadajirka ee Soomaaliya iyo Turkiga wuxuu sii wadaa taageerada uu ku horumarinayo awoodda Soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda iyadoo la raacayo heshiisyada labada dal ay kala saxiixdeen ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkiga. laakiin ilaa hadda si cad eedda Dani looguma jawaabin. waxay intaas ku dareen taageerada lagama maarmaanka ah ee la siinayo hay'adaha Soomaaliya iyadoo lagala shaqeynayo wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga gaar ahaan dhacdooyinkii barihii ugu dambeeyay ka dhacayay biyaha Soomaaliya ayaa lagu yiri. bayaanka Turkiga ma uusan faahfaahin nooca taageerada uu siinayo dawladda Soomaaliya, mana uusan si toos ah ugu jawaabin eedaynta Puntland ah in ciidamada Turkiga fuliyeen duqeymaha. hase yeeshee qoraalkan ayaa muujinaya qarasho howlgal. kaliya qoraalkan waxaa laga xusi karaa in Turkiga uu fuliyo howlgal, laakiin howlgalkaas ma kii dadka lagu xasuuqayaa ma mid kale halkeebuu ka dhacay ma xaqiijin Turkiga. hadalkan ayaa ah jawaab uu markaasi cadeyn u ah oo Ankara ay ka bixinayso bilowga su'aalaha taabacsan cidda ka dambeysa weerarada ka dhacay xeebaha Puntland.
puntland turkiga dhowaan waa ay eedeysay wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdiraxmaan yuusuf dujaana ayaa b b c da u sheegay in maamulkiisa uu aaminsan yahay in turkiga uu ka dambeeyo labada duqeymood ee sababay dhimashada iyo dhaawaca. wasiir dujaana ayaa sidoo kale ku eedeeyay dowladda federaalk ee soomaaliya inay qayb ka tahay arrimaha socda, inkastoo uusan soo bandhigin cadeymo si madax bannaan u muujinaya oo Ankara ama Muqdisho si toosa ugu xiraya weerarada. annagu burcadbadeed waa la dagaalameynaa, laakiin qofka xuquuq buu leeyahay, qofka la iskama dili kara ayuu yiri, isaga oo dabcan daba socda weerarkii turkidu ay ka geysteen gudaha puntland ee dhalinyarada lagu xasuuqay. waxa uu sheegay in puntland ay hayso cadeymo la xiriira dhaqdhaqaaqyada turkiga ee markabka la afduubtay iyo xeebaha ku hareereysan, balse eedeymahaas weli si madax bannaan looma xaqiijin. ilaa ay hadda ma jiro dowlad, ciidan ama koox si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka duqeymaha marka laga reebto warka u muuqday marmarsiyada ee turkiga ka soo baxay. duqeyntii ugu horreysay ayaa dhacay 18 bishan Agoosto ee sanada 2026, maalin kadib markii burcadbadeed Soomaaliya ay afduubteen markabka MV Lutef la yiraahdo oo ku goosheeyay calanka wadanka Cameroon. 4 qof ayaa lagu dilay, 2 kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay agagaarka Garmaal, waa deegaan ka tirsan gobolka Nugaal, kadib markii doon yar oo ka soo laabatay dhinaca markabka la afduubtay. weerarkii hore ayaa dadka lagu dilay qaarkood lagu tilmaamay burcadbadeed, balse eheladoodu iyo dadka deegaanka ayaa sheegay inay ahaayeen qaar ka mid ah kalluumaysato deegaanka ah oo aysan shaqo ku lahayn fal la xiriira burcadbadeednimo. duqeynta labaad ayaa dhacay 23kii isla bishan deegaanka Jifle lagu magacaabo oo degmada Godob Jiraan hoostaga, waxaana duqeyntaas ku dhintay 9 qof sida BBC da loo xaqiijiyay. qof deegaanka ah oo goobta tagay ayaa sheegay in uu arkay dhimashada 8 meyd ama 8 qof oo geeriyootay oo si xun jirkooda u gubtay, isagoo sheegay in qaar ka mid ah dhalinyarada doonta saareyd deegaanka aad loogu yaqaanay oo ay caan ahaayeen, kalluumaysatana ahaayeen sida uu hadalka u dhigay ninkan. si kastaba ma uusan xaqiijin karin sababta badda ay ugu jiraan ama in dhammaan dadka doonta saarna ay la xiriireen burcadbadeed. markabkan hubka xageebu u siray, hubbuu sidaa baa la leeyahay, hubkan yaa iskale xageebu u siray waa la isweydiinaya ilaa hadda. markabkan MV Lutef la yiraahdo ayaa la afduubtay 17kii bishan aan ku jirno ee Agoosto, meel qiyaastii u jirta 3.5 mayl badda xeebta Maraaye ee degmada ee u jirta ayaa laga afduubtay. sarkaal Soomaaliya oo wakaalada wararka AB u sheegay in markabkan uu siday hub isla markaana Turkiga laga keenay. qalabka saaraa waxaa lagu sheegay hub nidaamyo dayax gacmeed oo ku sii jeeday xarun tababar oo military oo Turkigu ay ku leeyihiin magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. waxaana la sheegay markabkan inuu saaraa ama ay saaraayeen 10 shaqaale oo ay ku jiraan 6 Hindi ah, 1 qof oo Turkiya, 1 nin oo Gariiga iyo 2 nin oo Serbiyaan ah oo dhammaantood ama labada Serbiyaanka ay ahaayeen ilaalo ka shaqeynaya markabka oo hubeysan. wakaalada wararka ee AB ayaa sidoo kale warisay in maraakiib diyaarado qumaatiga u kaca iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga la socdeen dhaqdhaqaaqyada markabka kadib afduubka. hawada sare ayay kala socdeen baaliyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano. burcadbadeeda ayaa la sheegay inay dalbadeen lacag madax furasho ah oo gaarayso ku dhawaad 2 milyan oo doolarka Mareykanka ah. doorka dowladda federaalk ee Soomaaliya muxuu yahay? su'aalaha ku saabsan duqeymaha ayaa sii xoogeysanaya kadib markii wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cumar Cali Cabdi 22kii bishan Agoosto uu sheegay in dowladda federaalk Soomaaliya ay ka warqabto howlgallo military iyo duqeymo ka socda xeebaha Puntland sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. waxa uu sheegay in dowladdu ay diyaarinayso warbixin dhameystiran, balse ma uusan magacaabin cidda fulinaysa weerarada. Cumar Cali Cabdi ayaa sidoo kale sheegay in haddii howlgal military oo ka dhan ah burcadbadeeda laga fulinayo xeebaha Soomaaliya, dowladda federaalk ay tahay hay-adda sharci ahaan mas'uulka ka ah oo fasaxi karta howlgalkaas ama diidi karta, taasoo meesha ka saaraysa inaysan dowladdu ka warhayn waxa Turkidu ay sameynayaan. Turkiga ayaa Soomaaliya ku leh joogitaan military oo ballaaran, wuxuuna Muqdisho ku leeyahay mid ka mid ah xarumaha tababar ee military oo ugu weyn ee uu dibadda oo dhanba ku leeyahay. xarun tababar ama military midda ugu sareysa ee Turkiga dalkiisa meel ka baxsan ku leeyahay waxa uu ku leeyahay Soomaaliya.
labadan dal ayaa sidoo kale 2024 kala saxiixday heshiis difaac iyo iskaashi dhaqaale oo 10 sano ah kaas oo Ankara kaalin weyn ka siinaya dhismaha iyo tababarada ciidamada badda Soomaaliya sugitaankeeda amnigeeda iyo xeebaha dalka oo dhan bayaan cusub oo wasaaradda difaaca Turkiga ka soo baxay ayaa Ankara waxa ay taageero ku bixinaysaa baa la yiri dhacdooyinka ka taagan biyaha Soomaaliya balse weli kama jawaabin duqeymaha iyo dhacdooyinka taagan cidda fulisay duqeyntaas dhimashada sababtay ee Puntland ka dhacday iyo mas'uuliyadda cidda qaadaysa ilaa ay hadda Turkiga si cad uga hadlin waxaan la isweydiinayaa Turkiga ma wax u gumaysi ayuu ku hayaa Soomaaliya xilligan la joogo maxayse tahay dhacdooyinka noocan oo kale adigu maxaad isleedahay ka aragti dhiibo geesta kale dhul gariir ayaa ka dhacay baa la leeyahay xeebo ka tirsan isla Puntland dhul gariir xoogan oo cabirkiisu yahay 6.0 ayaa saqdi dhexe ee xalay oo jimco ahayd ka dhacay badda gacanka cadmeed meel qiyaastii 145 kilomitir u jirta ama waqooyi kaga beegan degmada Caluule ee gobolka Bari ee Soomaaliya iyadoo oo la sheegayo in laga dareemay deegaano halkaasi ka tirsan hay'adda sahanka dhulka Mareykanka ee la yiraahdo USGS ayaa sheegtay in dhul gariirkan uu dhacay 6 saac iyo 7 daqiiqo oo habeenimo waqtiga Soomaaliya isla markaana xaruntiisu waxa ay ahayd xaruntiisu waxay ahayd baa la yiri meel badda hoostiisa oo qoto dheer oo dhirirkeedu gaaraya ku dhawaad 10 kilomitir sida markaasi ay ku warantay xarunta dhul gariirka ayaa ku taala biyaha u dhaxeeya waqooyi bari Soomaaliya iyo Yemen waxaana sidoo kale dhacdada xaqiijiyay xarunta Jarmalka ee la yiraahdo GFZ oo diiwaan gelisay dhul gariir cabirkiisu yahay 6.0 isla markaana waqtigaasi dhacay dhul gariirkan ayaa sidoo kale ku beegnaa qiyaastii 165 kilomitir waqooyi galbeed wuxuu kaga beegnaa deegaanka Bareera ee gobolka Bari halka ku dhawaad 209 kilomitir dhanka bari kaga beegan yahay magaalada Mukalla ee dalka Yemen USGS ayaa soo saartay digniin markaas ay ku sheegayso green badger ama green badger uu yahay digniintaasi taas oo muujinaysa in ay hooseyso suurtagalnimada dhimasho badan ama khasaare dhaqaale oo weyn khariirada qiimeynta gariirka dhulka ee hay'adda ayaa muujinaysa gariirka inuu ahaa mid aad u xoogan oo laakiin ka dhacay gunta badda haddii si bariga uu ka dhici lahaa khasaaraha uu badan lahaa sida hay'addan ay sheegtay ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya dhimasho dhaawac ama burbur weyn oo ka dhashay dhul gariirkan gaar ahaan deegaanada xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya sidoo kale xogta la heli karo ma muujinayso khatar tsunami oo ka dhalatay dhul gariirkan inkasta oo cabirka 6.0 uu yahay ama 6.0 uu yahay dhul gariirkan awood wuxuu u leeyahay inuu sababo gariir xoogan haddana xarunta dhacdadan ku taala meel ka baxsan xeebaha waxay yareysay khatarta degdega ah ee ay wajihi karaan dadka deegaanka sida ay ku dooday maamulka Puntland weli wax wara kama soo saareen khasaaraha ama saameynta dhul gariirkan ama xitaa weli ilaa ay hadda kama hadleen si guudna dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda badaha iyo kalluumeysiga iyo kheyraadka badda iyaduna wax wara kama soo saarin oo kaliya hay-adahan ku shaqada leh ee midna Mareykan tahay midna Jarmal tahay ayaa xaqiijisay jiritaanka dhacdadan oo ka dhacday habeennimadii xalay ahayd deegaano ka tirsan dowladda Puntland guntii gabagabadii ayaan joognaa saaxiib haddii aad inta nala soo gaarto waxaan kugu mahadcelinayaa si kal iyo laaba aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay 500% ayaan kugu abaalgudaynaa saaxiib nala soco like-ta naga ilaawin channelka subscribe soo dhamaalmahan muuqaal baahin ama baahinta muuqaalada dhinaca YouTube cilad ayaan ka wajahayna waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto qaybta comment-gana aad noogu xaqiijiso inaad nala soo gaarto ilaa iyo dhamaadka waxaad tahay qof wanaagsan waa maasan tahay saaxiib subscribe soo dheh